السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تدبوا وعن وبرنامج كيني وبرتين إن هالكان إذا كسو جديو برنامج كينا وحن كجهل دونا سيدي لجو هرمر لها أما أتكو هرمر لهاد نور الشهادة وحن ربا هالكان واحد اسكو إيمان سيدي عن واحد لموضوع كسابسن سيدي لجو هرمر كرا نور الشهادة waxaan ogsoonahay in badan oo kamid ah in ay had iyo jeer ku mashquulsan yihiin sidee ku horumari kartaa noloshooda iyo sidii halka ay ka gaari lahaayeen noloshooda ay ka gaari lahaayeen qiimo iyo qaya ay ka gaari lahaayeen ama ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan haddaba mustaqbalkaasi wanaagsan sidee baa lagu dhisi karaa iyo sidee baa lagu horumari karaa waa waxa u baahan in la isweydiiyo u baahan waa waxaan arkaynaa in badan oo arday ah ama in badan oo wax bartay oo taagan wax hadda aan qabanana ma hayo iyo qiimaha iyo noloshina waan ka dhacsanahay waxaan qabanana ma hayo hadda qofku wax u bartay waxa weeyaan sidii uu nafsadiisii u horumari lahaa ama uu wax u qabsan lahaa ama noloshiisa uu wax ka gaari lahaa sidaas la ajligeeda marka waxaad arkaysaa arday badan oo ka qalin jibiyay jaamacadaha oo ku dhahaya wax hadda aan hayna amal ah ma hayno waxa arkaysaa in badan oo meelaha iska jooga ama ku jira baraha bulshada waqtigoodina intaasi ku dhumayo marka weydiisidna ay dhahay kari ama dhahdidba war maxaa ku helayo maxaa ku sababay in aad noqoto shaqo la'aan wuxuu ku leeyahay shaqadii waxay noqotay graduation waxay noqotay qof waliba qofkiisa gacan qabanaya war sidaasi wax ma aha oo waxa laga doonayaa waxa weeyaan waa sidii adiga nafsi ahaantaada aad ku horumarin lahaydna kuna gaarsiin lahayd mustaqbal wanaagsan iyo aayatiin wanaagsan waxa marka ku gaari karaysaa waxa kamid ah haddaad go'aan leedahay ilaahay quraankiisa waxa uu ku leeyahay fa idaa azamta fatawakkal ala allah haddii aad wax go'aan qaadanaysidna bal ilaahay tala saaro sidaasna waxay u baahan tahay shaqadu iskama imaado balse laakiin waa la abuuraa creation bay leedahay ama creative wax loo yaqaan ay leedahay hal abuur ay leedahay waxa markaad hal abuurtid ayaad waxaad ka gaaraysaa miro dhalkooda iyo qaabka wanaagsan aad ku horumari lahayd maalin maalmaha kamid ah ayaan waxaan la yeeshay kulan ardayda kamid ah ardaydaas oo markaasi qalin jibisay waxay ka qalin jibiyeen jaamacadii markaas baan waxaan dhahay jaamacadii waad ka qalin jibiseen war maxaad ku go'aansan inaad qabatid oo kamir dhalisid maadaama waxa soo baratay waxay u baahan yihiin hirgelin waxa shalay wax u baranaysid inaad wax qabsatay wuxuu ku leeyahay wax waliba lama hayo shaqo ma taala beledkaani waan tahriibayaa waxaan aadayaa qurbahaasi baan aadayaa waan soo shaqaysanayaa si fiican nolol raaxo laan ku noolaanayaa halkani nolol ma taalo warhada nolol way taala wadanka nolol fiicantii ugu fiicnaad ka qurbahana ka fiican baa wadanka taala waxay u baahan tahay oo kaliya ahay sida loo shaqaysan lahaa taasna waxay u baahan tahay waa tadriib ardaydii aan weydiiyay maxaa jeclaan lahayd maanta mushaar ahaan inaad u qaadatid wuxuu dhahay taqriiban waa inaan qaataa $500 ama waxa loo yaqaan $500 waa inaan qaataa markaas baa waxaan ahay sidee baad ku qaadanaysaa wallahi niyaho waa fikrad ahaanteeda waa laakiin in la helay in kala ma cadawa markaasaan ahay 500 wax ka badan baa helaysaa sidee baan ku helayaa waa markaas baa waxaan dhahay war waxa laga doonayaa horta ma ongoshahay inaad shaqaysatid oo nafsadaada ma ka dhaadhicisay sidii aad horumar ku gaarsiin lahayd horumarka iskama imaado waa la raadiyaa horumarka nafsadaada ama noloshaada iskama yimaado waa la raadiyaa waxaan dhahay tusaale ahaan shirkad baad ka shaqaysaa shirkadaasi aad ka shaqaysay tusaale ahaan ama shirkad mesela shaqo ka qabanaysay waxa qaadanaysay $400 waa dhimatay war maxaad ugu tagday carruurtaada maxaad ugu tagday
maxaad ugu tagday ehelkaada ugu tagday maxaad ugu tagday asxaabtaada iyo dadka familka ahay ugu tagday waxa ma helaysid bal dhageysanahay marka tusaalahan ku siinaya tusaalaha aan ku siinayo waxa kamid ahi bal ka waran hadii 500 aad ku haminaysay in ka badan aad heli karaysid waxaad ku helaysaa sida tani soo socoto bal tusaale ahaan 4 tarmuus ayaan soo gadanayaa 4taasi tarmuus waxaan ku qasayaa 300 oo galaas oo cabitaan ah 300daasi oo cabitaan oo galaas waxaan ka raasanayaa meheradooyinka ama meelaha meel kamid ah population-keedu aad u badan tahay 300daasi marka lagu dhufto 3,000 shilin waa 900,000 shilin haddaan markaasi aan u bedelo 9,000 shilin waxa ay u dhigmataa dollar ahaan marka loo eego waa $35 okay marka ay u dhigmato $35 kala soo qabo waxaad shaqaynaysaa oo kale 26 maalmood maalmaha kale inta 4 maalin ee soo hartay ee jimcaha ahi waa maalmaha ku jira bisha bal ka waran marka 26 maalmood marka lagu dhufto $35 waa lacag gaaraysa $910 bal ilaah baan ku dhaariyay marka nin ku shaqeeya bishii mushaar qaata $900 oo wadanka joogo dhalinyar ah bal ka waran markaas bad waxa la leeyahay halkani wadanka shaqo ma taalo war wadanka shaqo way taalahay laga faa'iideysto ya shabaab اعملوكم مشاريعكم خاصة مشاريع خاصة إذن أما مشروعية خاصة إذن سمايستا بل سهادي هنا هودن كشغة متالا واضح هذا هل كان بعد كبحضي وارد كذا بعد مركز لعك قالتي أما أيقو كو جنب بحضو ملاهي كو قبصة مقفي يوحي لمتكاي markaas aad cabaadaysa markaas waaridkii iyo wixii la midka ahaa halkay dhul ku gadaan ay haddana kadib say kugu ama bixi lahayaan kadib ay galayaan markaas ay ceertoobayaan waaridki bilaa alaykum ya shabaab war dhalinyaro wadanka shaqo way taalaha laga shaqeysto i'malukum mashaariicukum khaasa cish hurran war sicru noolaada balse laakiin hadihinaha wadanka shaqo ma taala waxna ma yaalan yaa dalka maqalnaha maanta laga bilaawdo nafsadaada sidaad ku hormarin lahayd ka qayb qaado hamigaadana ha sareeyo yuusan noqonin hami markaasi ku salaysan niyad oo kaliya ah laakiin wax qabad hala socdo waxaan markaasi aan ku soo gabagabay lahay maadaama aan khudbada ku dheeraaday dhalinyaro hadafkeenu ha noqdo hadaf hormareed yuusan noqonin هدف social media iyo waxyaabaha dhalinyarta baabaasaday ee baabajeyga iyo wixii lamid ah ee mustaqbal xumada ku riday tacliin xumada ku riday horumar xumana ku riday yeesan naga noqonin oo hadafkeena ha noqdo mid horumar ku salaysan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kulankani isugu imaadeen iguna cazumteen aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته